بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan kusoo jirnay maadadeenii quantity surveying waxaan ku jirnay jabtarkeenii labaad foundation work waxaan soo qaadanay 4 cashir afarta cashir dabadeed waxaan rabaa inaan idinla wadaago maanta practice iyo su'aalo aan rabo in laga soo shaqeeyo afarta cashir aan soo qaadanay baan wax iska weydiin doonaa waxyaabaha is weydiinayna waxaa ka mid ah cashiradeenii iyo sida ay taxanaha u ahaayeen bay ku saabsanaan doonaa waxa loo yaqaano exercise-keena marka qof walba uu isku soo day inaad soo xalliso exercise-kan number 1 su'aasha koowaad ee practice-keena waxaa waaye in aad samayso excel sheet-kan oo kale inaad sidan u diyaariso excel sheet waxaad samaynaysaa company name waxaad samaynaysaa title-ka tusaale excavation waxaad samaynaysaa consultant name serial number description number length yani dhammaan detailskan ayaad soo samaynaysaa marka si fiican suuda inaad aad samaysid waa su'aasheena koowaad yani excelka muhiim buu noo yahay excelka quantity surveying ama cost estimation muhiim buu yahay marka fadlan isku soo day inaad samaysid maxaa la jiray excelkan oo kale mujida qaacidada samaynaysaa total quantity halkaas inay ku yimaada la rabaa waxaa laga baahan yahay inaad colorka ka bedeshid maxaa la jiray dhammaan isku soo day excel sheet-kan sidan aad u diyaariso that's question 1 question 2 aan ka rabo waxaa waaye inaad soo saarto excavation-ka plan. You see here, this is section. I mean, this is plan, and also this is section. Sorry, section A. marka waxaan ka rabaa inaad samayso excavation BCC formwork and concrete of this footing waxaan ka rabaa fiiriya excavation BCC formwork and concrete of this footing this is plan of footing oo jeeda planning waa kana BCC gi waa kan formwork inta ayuu gelayaa this is cover this is meeshii aan ku shubayn sabada ama shubka mujida and this section kana waa kana BCC ga intuu noqonayo height-ka concrete-ka waa kana dhammaan inta la qodayo ilaa ground floor of excavation-ka G ilaa iyo bottom-ka hoose waaye waxa ay kaliya ku kala duwan yihiin cashiradeenii aan soo qaadanaynay cabirada baa kala duwan tusaale ahaan inta 250 ayuu noo ahaa BCC-ga laakiin hadda okay sorry waan hilmaamay inaan dimension gareeyo let me do it now haddana 250 waaye marka hore wuxuu noo ahaa 150 intana 250 waaye marka isku day inaad soo samaysaa maxaa la jiray exercise-kaas waa cashiradii aan soo qaadanay haddii aad xalinaysid insha Allah waxaan kuu soo dirayaa drawing-kan AutoCAD-ka marka fadlan isku day inaad soo samayso exercise-kaas maanta cashirkeena intaan uu ku saabsan yahay haddii ay wax kugu adkaadaan ama aad wax xallin weydo ku dib u laabo horta cashiradii 4 darsi aan soo qaadanay dib ugu laabo haddii intaas weli wax ku xallin weydo waad soo weydiin kartaa su'aal email-kayga iyo telephone number-kayga ayaan idin soo qori doonaa marka waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin oo su'aalahaas aad ka soo jawaabi doontiin insha Allah cashiradina waa taxana isku xiga waaye waxaan isku daynaa jabtar walba markaan dhowr cashir aan ka qaadan in su'aalo noocan oo kale aan iska weydiino marka isku day inaad soo xalliso su'aalahaas
mar haddii duruusta aan wax su-aal iska weydiinin macno weyn ma yeelanayaan. Marka waxaan kaa rajaynayaa inaad ka soo shaqayn doonto su-aalahaas. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Wasalaamu calaykum.